Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa iska soo duubay muuqaal uu ku beeninayay in maanta uu diiday go'aankii ONLF iyo Cabdikariin Qalbidhagax looga saaray liiska argagixisada oo xukuumaddii ku tirsanaa ay Xasan Cali Qayse ku dartay. Markii uu galabta soo baxay go'aankii ay xukuumadda Rooble ku saxday qaladkii hore ayaa waxaa baraha bulshada lagu faafiyay in Wasiir Beyle uu ahaa codka kaliya ee diiday kiiska ONLF iyo Qalbidhagax. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa horey u qiray in muddadii uu socday shirka golaha wasiirada uu soo jeediyay in dib loo dhigo ajandaha ku saabsan arrinta Qalbidhagax iyo ONLF. Hase yeeshee waxa uu sheegay in ujeedkiisu ahaa in kiiska loo maamuuso sida uu weyn yahay, balse markasta uu taageersanaa halganka gobonimo dirirka ah ee ONLF. Waxaan internetka ku arkay warar been abuur ah oo dhahaya Beyle wuu diiday in ONLF laga saaro liiska madow. Arrintaasi waa been. Markii wax la falanqeeyo waxaa jira ajandahana laguma jiro arrintan. Marka anigu waxaan soo jeediyay in kiiska muhiimadda uu leeyahay loo yeelo oo ajandaha lagu soo daro. Aniga ka Beyle ahaan ma dhici karto in walaalahay ONLF aan dulmiyo, ayuu yiri Wasiir Beyle. Waxa uu sheegay in madaxda ONLF ay saaxiibo yihiin, qaarkoodna ay hore u soo wada shaqeeyeen, haatanna uu aqoonsan yahay inay yihiin rag guul ka gaaray gobonimo dirirkooda. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaaraha oo maanta ajandahaas ina hor keenay oo muhiimadiisa siiyay kiiskaas, ayuu yiri Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlayay arrinta Qalbidhagax iyo ONLF. Tiraahdo ama aad subscribe saarato